بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بالسنة واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وبعد، ودرسيني صديحي طبنات وعنك قادتنا حديث كالإحدانات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وحصوبنه لي لا تقوم الساعة قيامه دعي مايو ويستاقي مايو حتى يقبض العلم إلا علمك لقبته أو لقاضه وتكثر أيبضته الزلازل للقريرد أيبتان ويتقارب الزمان زمانك يحلقنا يسود دواده وتظهر الفتن فتنة أيبضته ويكثر الهرج هرجنا أوبته وهو القتل ودلك حتى يكثر فيكم إلا أوبته المال مالك فيفيض وبرقضه. حديث كان وحو كورميا على مدها قيامها قيب كميدا الأشراط الصغرى على مدها يرير على مدها يرير وحيو بدين قار دعي أولي السعودة iyo qaar la filayo oo aan wali imanin labadaas loo qaybiyaa. qaybtan badankoodu way muuqdaan, midda ugu dambaysa laga yaabaa iyo midda labaad inaanay baad u badnayn. nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam laa taquumu saaca xataa yuqbad alcilm, qiyaamuhu dhici maayo ilaa cilmiga la qaado. cilmiga qaabka loo qaadayna waa nagii soo marnay. ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan ينتزعه من صدور العباد. علمك هبين لغو سو غورين مايه إلهي وحو لينيا oo meesha ka baxaya culimadii. ardadii cilmiga ka qaadaysanaa cilmigii madaxba u qaadi maaya, maalma haduu wadana farow ka qaadaya. marka halkii uu cilmiga gunta soo qaadila ee uu daba socon lahaa ilaa uu ka gaarayo darajo ummadda ku anfici karo ayuu meel dhexe ku joogsanaya. imikana waad arki kartaayo calaamaadka aakhir zamaanka ka mid tahay qofkii intuu ayaamo yar dadaalo inuu haddana han jabayo, muddo inuu yar wadayo, markaas tiraado malaa ninkaas waa soo baxaya inuu meel dhexo ku basbeelo ama wax kaleba eryado. waa calaamadaha tawfiiqda ilaahay qofka yareeyo. waayo man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin. waa waxay culimmadu ku tilmaamaan xataa inuu ka mid yahay atawalli yowm zaxf, qofka isagoo cilmigu u baxay faraha ka qaaday wuxuu ka la mid yahay mid inta ilaahay albaab khayr oo furay isagoo iska xidhay. marka cilmiga wuxuu ku waarayaa laba arrimood: in cilmiga la nashriyo oo masaajidda uu ka baxo oo aan sir laga dhigin. cilmiga haddii sir laga dhigo la yidhaahdo keliga baan ku akhriyaya cid kale soo kacaysanin oo kotorbaan laga dhigo u xumaadaa. waa madda labaade inuu waayo talabo waqti ku bixiya isna waxay keentaa inuu cilmiga yaraado. taas waa calaamad. marka culimada la waayay qaar baa loo cumaamadaya, kuwaasna ummadda jar iyo haadaan bay uga boodayaan. watakthura zalaazil dhulgariirada badanaya oo dhulgariirada halkan uu ka dhacay ka waxa laga yaabaa inaanu aad u badnayn oo xaddigii ay xadiisu sheegaysay lama gaarin isaga. waxa laga yaabaa sanadan inaynaan maqalba telefishinada ku arag wax dhulgariira. ilaahayna ummadda ka ilaaliye waa wax halis weey. waxa laga yaabaa ilbiriqsiyo gudahood dagaaladu waxay sanad ku dilaan ayaa laga yaabaa in ilbiriqsi gudihii ummado dhan ku haligmaan oo fooqyo iyo dhulal iyo wax isla wada go'aan. eeshiidaas uu badan yahay. wayataqaarab az-zamaanu, xilliguna isku dhadhawaado. taa iyada waxaynu haynaa si practical ah. axaadiisu way sii cadayso waxay tidhi as-sanatu ka-shahri, sanadku ayaa wuxuu noqonayaa biloo kale. sanadadii qofkii intaasoo safar geli jiray intaasoo dhacday dhici jireen imka waxa lagu odhanayaa sanadkii waa bishay. imka maxaynu maraynaa kan bisha waa maxay 48 weeye 448 waaba sidaa. kii kalena wax laga yaaba inuu sankeenu ku soo hayo. washahru kaljumca, bishiina usbuuc oo kale noqonaysa. deetana walusbuucu kalyowm, usbuuciina maalin. qofun baad la ballami sabtida haynoo haato oo tii kale oo sabtidii kale aad moosaa inay tii taagantay. saa laga yaabna ku idhaahdo laba sabti baynu marayna, hadna maxaad u haysatay in usbuuc keliya ay tahay. ساعدنا إن نقطه كالسعفة
sacfada ma taqaanaan waa waxa la yidhaahdo aalaha diirkiisa waa caleenta balka caleen bal marka la gubo hulubay tira markiiba waa baktidaa saacaddiina waxay noqonaysaa sidaa caleenta la gubay oo kale culimmada markaa badankoodu waxay ku tegayaan noocan aynu u fahanay oo ah wakhtigiiba yaraanaya gooru ku dhaafay waad garan waysaa culimmada qaar waxay leeyihiin maya wakhtigu waa intiisii barakadun baa ka baxaysa oo waxay leeyihiin taqaarubku waa mid macnawiya oo wixii lagu qabsan jiray usbuuc bil baad ku qaban wixii bisha lagu qaban jiray sanad baad ku qaban marka wakhtigunba macnaha laga siibayaayo biluhu waa intii wakhtigu waa intii wuu macno beelayaa sana waa lagu macneeyey watadhara alfitan fitnada ayaa daahiraysa fitnada maalka iyo fitnada kursiga iyo fitnada dumarka intuba waa fitan nabiguna waa sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa iminka inta badan la isugu baaba'ay la isku dilaana saddexaas u badan yihiin kuraas waa la isku dilayaa waxaa la isku dilayaa maal waxaa la isku dilayaa dumar iyo wixii la mid ah wayaksura waxa badanaya alharju ereyga alharj saxaabada uu ku cusbaa maa huwa alharju ya rasuul allah alqatlu buu waa dil waana calaamadaha ugu badan imka akhru zamaanka mobil baad furi telefishan baad eegi dilun baa soconaya intaas halkaa lagu dilay intaasaa islaysay weliba calaamadii uu nebigu sheegay baa muuqato oo qaatilku garan maayo wuxuu ku dilay kan la dilayna garan maayo waxa lagu dilay waxaa laga yaabaa nimaanaanay labadan isdilaya inaanay isba aragba laba biyo hooskooda iska arkay ayaa isku diray reebel baa layna idhaa dhulkay naga qaadayaan kanay yeelayaan ku kacaay deetana ku kacaydii baa dhacayso deetana boqolaal iyo boqolaal ee se xasharaadka isugu dhimanaya kii isku daraynaa waxaa laga yaabaa casiirku inuu hor yaallo iyo kafeega uu walaaqanayo iyaguna cidlo gawaan cad isku dilayaan waa caqli darro iyo iimaan xumo wey xataa yaksura fiikum ulmaal fayafiidu tan aakhiru zamaan ka imanaysaa waa markay soo baxda cadceeddu galbeed ka soo baxdo ayuu maalku macno beelayaa qofku muxuu xaqiiqsanayaa maal dambe oo la dhaqanaya maal wax taraya inaanu jirin markaasuu waayaa qofki intuu la soo baxa sadaqad cid ka qaataba sukule ma shalay ii keentid shalay waan kaa qaadan lahaa imika maanta miya 2 ragcadood baa iga qiimo badan adduunkiiba oo la nacaya waxaa la ogaanayaa in adduunku soo gabagaboobay ama inta ka horeysa maalka waa la eryanayaa maxaa yeelay dee wixii uu qabanayay baa la garanayaa maalintaa laakiin la ogaado adduunku inuu laabmayo nin walbaaba wuxuu ku fikirayaa wixii raacayay فعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال وحول عبد الله قال لي النبي صلى الله عليه وسلم النبي يا يقول ألم أخبر ميان لي ورمين أنك عبد الله يوم تقوم الليل أي تقوم كل الليل هبينك يردن إن الصلاة تاجنتهي وتصوم النهار ما لردن صومنتهي قلت إني أفعل ذلك سدا وان يا رسول الله قال وحول فإنك أذقو إذا فعلت ذلك سدا هداد يشو هجمت وقريسا عينك إيش هذا قريسا إيش أنت كقدو آيات نفقة بليسا ونفيهد نفسك ونفيهد ويدالي نفسك نفتاد أعيد ويداليو وحبو يقبس واي نفيهد بالفاء بيدين قرصمه هذا الروايات كقارتان نهكت ينوى معنى صار وريو ويهلق بيسوي نفسه وضعيف سا سودوي نهكت نفسك وإن لنفسك نفتاد عليك دش هذا وحي كقول هذا حقا حق بيقول هذا نفتي إلى لصو ولأهلك حاس كاغنا عليك هذه وحي كقول هذا حقا حق بيقول هذا هاي فصم صون بعد الأيام مع المهقار وأفطر أفر وقم استاج بعد ساعات الليل هبيك قيبيس الصلاة استاج ونم سيحو صحابة النبي تربية رضي الله عنهم أجمعين هي حالك إنه كترنا عريا لول بيننا هاي إنك دايرتين والله ترترسيا ولا تعليسين يا عبادة لكن يجا حكم على جاهي وركك الداية وهي وحول الرنتي عبادة إما كان أبيه بوجوري كبدي بحاجة هو يجواي كبدي يربح دلنا باركي وريستو وككركروريجي آخر كيو حوجادي إن أنا حاجة إذا بورد قاقين هبين أردن صلاة بقعدة هيا مالين أردن وسومي نبي الصلوات ربي والسلام عليه توضع ذك بولا قلي هذا لا درنا كم دها وركدا
haddaad soonka xidhiidhiso ishiina way guri oo waad nafaqo beeli jirkuna wuu dabci oo waad silci waxba ood qaban waaye jirku waa gaadiid oo waa rukuub oo la ilaashadaaye ilaasho innagana markaad bariis iyo suqaar ka dhergiso jiimkana geliso soomi weydo salaatuleyl ka weydo jir markaa nooc kala ah markaa qolo jirkuuna ilaalinaysa iyo qolo ruuxduuna ilaalinaysa nebigu wuxuu inagu tarbiyanaya waa meel dhexe oo maxay ah ruuxdii iyo qalbigiina ha la ilaaliyo jirkiina hayaan la ilaabin muxuu ka soo bilaabay qur-aanka habeen walba uu dhammaynayay ka daabuud bishii ku dhammee wax ka badan baan karaa 20 cisho ku dhammee wax ka badan baan karaa 15 toban usbuuc 3 cisho isla soo gaadhay 3 maalmood wax ka yar kuma fahmayso quraan halkaas la isla dhigay soonkii wuxuu yiri bishii waxaad soontaa 3 maalmood wax ka badan baan karaa bishii waxaad soontaa 10 cisho 20 cun ma wax ka badan baan karaa ya rasuulallah maalina soom maalina afur وصيام داود وحكى بدن ما جرو كفضل بدن صلاة الليل كان ساعة قارة تكو قارنا سيحو هدو مركو قبوبي الصوم كما كوات كذا صلاة الليل كما وحسمين جري بلانتي النبي كان كمان بحيو إنه مال مصراعيو أسبوع أفرو وحوجيستو تقوى أسبوع كلنا الصوم كيستبقى ليو سورة جري الله مان وحيصلها ساسا لوحو جناني يا ولدي وابوي بركة بالك مو فيلين shirkana dabciyo waxba isbedeli doona dhalinyartuna inta badan way dhacdaa markaan cilmiga baranayni anoo far yar yar qoraya aad u yar yar aynu sheekh Allah u naxariistay Sheekh Abdul Naasir soo dulmaray suuriya fartaa waa weyne waayo waad weynaan sadibo akhri doonta fartaadii akhri waay ya imanka markaa waraaqayga qaar saa u eegan siraado ku birinay raada wallahi wixii la sheegay maalintaas ma wallahayn فروا وين بالله بهانية مركا قفك وينو كنت لقلا وحي من كلا مركا عبادتنا وحي بهانت اعتدال ما أنت دتك تشوجا وين لجوا يعني عبادة كدران هدي الأركين الترارة يعني مركا صلوا رندونا وكلا كادية مركا اقتصاد كي دحدحاتك ووحفي عن دينتنا وين أمر يصاب وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وحول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحوها يعلمنا منا برا هدانو صحابتي النهي الاستخارة خير دلبك في الأمور أمورها كلها روايات دي أين صمرني كلها بكترتي لكن روايات يدها كم تشرتو في الأمور أشا كترتها وجنسية وعموم لكن هو عام أريد به الخصوص الرمو هردن لو ما استخاريسو إيوا الرمو قارة واجبك لو ما استخاريسو سنة هنا لو ما استخاريسو حارانته كتجتان كذا الله ما استخاريسته مكروهها كتجتان كيس الله ما استخاريسته حصهري مباحاتك ما صفراء مسك دايا مهردا ما فرطا مسك دايا قبلنا ما جورسدا نكمل الشراكوبا الرماها مباح نوع عاسى استخارة لو بهيي هرنا وينجي بياني نيو وحنو نري إلهي سبحانه وتعالى والله قصة ختمة مركز صوت تشتو إد وحصاب باردو أتوق بجبيسو والله قصة أفمريا استخارة يتنال وضع سنة الليلة حديث كشيء جايو نك إله إلا تشهدانا ولقي مل حكم الدعاء ويتلذ إلهي وكما كعدوي كما يعلمنا صدو نبر أي نبري السورة من القرآن سورة القرآن كا أنت نحفظيه ونجد جيستو أي نبي نبري صلوات ربي والسلام عليه يقول وحورنجري إذا هم أحدكم متكين هدوك هميو بالأمر أرنا دوكو هميو أركنا ونجي شغني وأرن مباحة فليركع هاتو كدو ركعتين لبركع عدود كدو من غير الفريضة أو فر لهين ولا بركع عدود أو أجار استخارة ثم ليقول كورم ورنايا مركو سلام نقصده ساسر راجحة مركات عيا ستة سلام نقصده دعاء جارات قبسنا هذا الكلام ورنايسا اللهم الله يو إني أنيجو أستخيرك خير بانك هذا البنية بعلمك بسبب علمك إلهي وأقونت هذه علمك يا أقال كاجا حيش دير له يا خير كاجا البنية وأستقدرك أود بانك هذا البنية بقدرتك أود هذا السبب تيدا أي أنا أود كاجا البنية وأسألك وحنك ويدي سنية من فضلك ديرات كاجا العظيم وين يعني له كويدي سنية
وتعليلين يا مركا صوابين فإنك أدوه تقدر وحباد ودا ولا أقدر أن وحنا ما أودو وتعلم ودكتي حقيقة الرمها ولا أعلم حموق ينسك سعدانه وأنت أدونا علام الغيوب الرمها مكان كآد كوجبات إلهي وقال له كودي أو نوا كودن تهي أنا والله بدي ما مرتبان كاجا هيو منا ما هيو اللهم الله هيو أنت ظهر دعي إن كنت تعلم هذا تهي أن هذا الأمر أرن كان ولا أرن كده يميسي جور كان بعمشتر كان مهردا سفر كان يفجأ قد يد النوع عاصي هدي أي خير لي خير بدن تهي في ديني دين تيدا دين تلوريسينية ويدي دين تكاخل خشوح قالوا كوها جاي تبجلس يا كوبحي في ديني دين تيدويني خير بدن تهي ومعاشي ينالو شيء ده ديو وعاقبة عمري علبت هيدا الدنبي علبت هذا الدنبي وحلو بديه هي مستقبل كالدنبي رانديسكا مركا علماء قالوا وحلين وآخره قل له حلين مايا ومستقبل كاغا الدنبو أو سندد هذا الصوص عضا أي قد يدني حكومة يسا لوضع بده علبت هيدا الدنبي أما تناخره أما تادويو أو قال وحولي عاجل عمري وآجلي أرنكي قدو إياك نيربا كان دم يسوقوا عادي هيو عاجل أمري وإنت نوشوغي مكا آجلي نوا حق الدنبي فاقدره لي إلهي ويقدر لي أنا يقدر أرنت هذه خير لدي ويسره لي يسر حلرانت دعاء يقدر هذا كوديسو oo lagugu adkeeyo oo marka soo fara jabto ee soo muruxdo soo kadeedanto aad ku soo dhacdo xamad faayidi laba raacinaysa ilaahay qadar ina fudude oo qodaxda ilaahay iga dhil oo dariiq ay fur thumma barik li fihi kadibna ay barake saddex cusub istabadhigay ii qadar oo ii fudude kadibna ilaahu barake ii gali arin nooca la yeelay oo ku hirgashay marnaba ku khasaari maysid waayo alihi weyna waahidka ahaa ducadaade waa aqbalay maxaa lagu gartaa arinku hadduu si ismuu soo socdo oo uu durduriyo waxaad ogaataa istikhaaradaadi baa la aqbalay haddii kaabado waaweyn iyo dhaabada ka hor yimaadaan yaa waxba ha khasbine waxaan ku hor yaallay kaabadan culcus oo istikhaaradii ka baydh dhinac kale u baydh waa kan allahuma allahayow in kunta taclam haddaad og tahay ana hada alamra arrinkan wayusami xaajatah waahidan uu magacaabaya شر لي إنه شر بدن يهي في ديني دين تيدو شر بدن يهي وعبادتي عقيدتي أخلاقي قحمين أيوه ومعاشي نلو شيدنا وحيي لايو وعاقبة عمري عربت إذا دمنا وحيي لايو أو قاتل أو قال عاجل عمري وآجله فاصرفه عني فاصرفه إله يسقى الليحي عني أنا يقل الليحي واصرفني أنا الليحي عنه يسقى يقل الليحي واقدر لي الخير حيث كان واقدر لي إلهي ويقدر الخير خير كحيث كان هلكو تشوغو كان مركز يقال لي حيسو أنا قال لي حيسو سدا إلهي ويقا تقيني خيركو هلكو تشيرنا أضاء قرانا إيدو ثم أرضني به ألفك همسة قدع لقالك في عن صوي دي موسى بني همسي مدل صاري أرضني به يقول رالي قال يو أرنت هذا بيد إلهي ويسيسينا يقول قنعي إلا ذلك قاربا كيونو مغضى ويكقد قنتاي كان هذه الدودي إلهي يقول رالي قالي وحكى له صارتي ثم ردني به وهمثال لقى مرمى مركا الله بدو صارتي ردني به يقول رالي قالي أما أرضني به قال وحلو ويسمي حاجته باهدي سنة ومقعابيا دعاء الاستخارة تشعي لك قبطال الرباء أرن كادو دقاقيسو لو استخاريستو حتى مسلوينك الإمام الشافعي مسألة أبحي ويده وحورجل وهذا ما أستخير الله به مسألة وأنو استخاري السنة مركو استخاريستو مسألة دي بقى ونعبو ديقواي حقا دليل واستخاري السنة هذا وحورنا يا صاصيكو بحضي تيبو قعمينية استخارة نوع مجربة مركو وحيات قرن ويدو الرماه النوع عاصة عادة لقد اكتاء إلى هنا كوشين مايو فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحول ما بين بيتي قريقيقا يوم منبر كيقا انت كدحله روضة وبير من رياض الجنة بيرها جنة كمدا منبر كان كخذ بديانا على حوضي در كيقا أيوكو قطما حديث كان
كتب صحيح البخاري دمانتي سنوغو صارورا ما بين بيتي ومنبري بيت كل شيء أنا بيتك يوردن ما وبيتك عائشة وقولك عائشة رواية ورسم ما بين حجرتي ومنبري أي سيعة ديني صو وقولك عائشة رواية دا ابن عساكر ورين يراد ما بين قبري ومنبري ورواية بالمعنى لفظها المأصحين قرطبي بأسا بيانين ابن حجر العسقلاني وبيانين يعني خطأ تهي ابن تيمية يقول سوى بيانين يا وايو ومخالفة للرواية الأكثرين قبركم مبوشرين بقى ما بين بيتي أما ما بين حجرتي وي هذه الرواية سيتري لهينا صحابة اسمه ويدين حقين لغو آسيا حول الله وكي حديث كوري ما بين قبري هل كان لغو آسيا الله هذه مركا الإمام البزاري الطبراني باورينية وحلوه بدن هي إن تهي الرواية بالمعنى هذه أصحدنا ومعجزه نبي سي شيء جايو ويقول كان عائشة وقول كلغو آسايو مركي دنبو قبر النقضية مركي رمحوها بيته وحجرته بوها ما بين بيتي قل كيغا عائشة إيو منبر كان كخد بدأيو روضة بيرباء من رياض الجنة بيراها جنة كمدعاء علماء الإسلام كو معاني بدن بيكون معنيين معناها وقهر يا وحوية دول كان ودحية منبر كأي قلكو وحلقة كاني جنة oo sida xajiroosid kaba jannada looga keenay ee arlada loo keenay ayuunba iyadana loo keenay hadhowna lagu celinaya sida jidcigii tiirkii nabigu ka khudbadeyn jiray intaanu minbarka sameeysan hadhow jannada loo geynayo ayuunba isagana loo geeyay taa waa lagu macneeyay macnaha labaad waxa weeye cibaadada halka lagu qabtaa waa cibaado tawaali jannada ku geynayso meel kale aan ku sii marinay ee aad toos jannada ugu helayso روضة معناها صدحات وحوية روضة عبادة الغقبتها وحي كانت سعادة الليبان يفرحت بي كانت سيدا قفك جنة كتر الليبان يفرحت وهلايو أيو تانا وهلايا مركز صدح ذا معناه كدحي يا إمام أحمد يا إمدي وويناه أي مرين أو أعماشها هالكا الغقبتها توس بي كوغينيسا جنة وانا روضة على رايومك way tagaan dadkeena cumreystaa ma xajo oo bariga hore iska banaanaan jirtay imika waxay ka dhigan digital internetka laga cumradii dhaweyto internetka naga booking gareeyeen waa booking waa lagu sii buuxinayaa xilli baad imanaysaa time-ka daqiiqad dhinac way ka wanaagsanaatayo dee dadkii ku qornaan baa imanaya dhinacna way ka sii adkaatayo dee haddii booking kuba kuu soo bixi waayo waxaa laga yaabaa adigoo masaajidkii nabiga yimi oo salaamay nabiga iyo labadiisa saaxiib inaad rawdadii kuba tukaninba barigaano iska banaanaydo cilad laakiin waxay lahayd nima khatar Nigeria oo inta shan isku qabsaan bay oran jireen sunayso ninba xoog ka sunaysanaya ama adoo sunaysanaya isla ka jiraya madaxa iyo jirka iyo muruqaba lagaaga sii istaagaya culays badan bay lahayd laakiin imika aad bay u nidaamiyeen waliba saacadaha dambe ee labada habeenimo iyo kowda iyo waxa leedahay ugu fiican in la helo ومنبري على حوضي منبر كيغونا حوض كيغو كو قطما حوض كل شيء يا وحويه وحوضك اما درك الهي نبينا كو غلداي ee banka qiyaame ugu tala galay ilaahay casuumad bilow ah oo dadkii haraadka ku soo baxay ee qabriga gaajada kala soo baxay ayaa lagu casuumayaayo qofka marcaba dib oo dabaysa oo haraadi maayo marka minbarka nabiga kaleey salaatu wasalaam xawdkiisa ayuu ku beegay waxa weeyaan macnaha ugu fiican waa in la yiraahdo way isku beegay oo minbarka nabiga iyo xawdka aakhiro way isku beegay culimada qaarna waxa leeyahay waa laba xawdo xawd darka banka qiyaamaha iyo mid jannada ah laakiin ka jannadu waa kawthar inna adaynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar فعن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال وحول صليت وحلت كذي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر صلاة عصر بنلت كذي فلما سلم مركو سلام النقصدي قام واستاغي سريعا قياما سريعا كعتان دقدق أيو كعي دخل وحوقل على بعض نسائه
تمردي سكار كود بوغلي ثم خرج وصبحي ورأى وحو أركي ما في وجوه القوم قوم كي يا صحابة وحا وجهودا ومن تعجبهم ليابك لسرعته دقدق وكعي لتعجبك ليابين بو أركي فقال وحو لي سقو وبعدين ذكرت وانا حصوصتي والحال أنا أنيقو في الصلاة صلاة كجرة تبرا ذهب كمركا لغا شقين او كوسكا يahay ee qashinkii wato ee dhagaxii wato ayaa tibri leeyda عندنا agteeda ah fakaritu waxaan nacay an yumsiya inuu gabal dhacsado aw yabitu hoydo عندنا agteedo fa amartu waxaan amray biqismatihi qaybintiisa biqismatihi samidin qoraya biqismihi buri wa khada madbu'iya قسمتي تام كوخرية طبعا هذا اوكي واي marka dabcada anaga doon baa laga yaabaa taydana waa khada weey biqasmihi qasamku kan bama qismadi weey biqismati in la qaybiyo sama qismatihi nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dabeecadu lahaa salaadaha oo dhan inuu sii fadhiyo haba sii kala dheeraadaan salaada subax iyo casarka u dheeraa laakiin salaadaha dhan waa fadhiyi jiray waa ku nagaan jiray in badan buu iska fadhiyi jiray maalinta waa salaamo naqsaday degdeg buu kacay oo qibladu waxay ahayd madiina koonfur qolka uu kacayana waa labada dhinac midoon ma keenaysa inuu dadka sii jiidho laakiin waxay la yaabeen degdega uu kacay nabigu wajigoodu akhriyay inay yaabayin waanu soo noqday deeta waxa uu yiri waxaan xasuustay anoo salaada ku jira kuus dahaba oo guriga la keenay kuuskani waa sadaqo waa jizyo waa xuquuqdii muslimiinta nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wa damcay inuu hore u dhameeyo waayo laba arrimoodba kow nabigu maadaama ilaahay uu kula ballamay inaanu dahab haysaneyn diinaar iyo dahab dirham toona haysaneyn ballankii waa la galay waxay keenaysaa inuu hore u qaybiyo adduunkuna uu la qiimo darnaaba kuuskii dahabka ahaa nabigu intuu amru gogooyay xabadi gabalka ugama dhicin bal tani waa bay yareeyde nabiga waxa loo keenay maalkii ugu badnaa oo Bahrain laga keeno oo dahab ah ayaa la tuulay masaajidka saxaabadu waa wada yimaadeen nin walba wuu amraa qaado adeerkii baa Abbaas oo barigii la soo qabtay dagaalkii Badar lagu qabtay nabigu ku yiri naftaada iyo labadaada adeerka u tahay ka bixi madax furashada nabi Allah waa sidee wadaan faqriya faqri meesha bixi 40 diinaar 120 diinaar nabi Allah waa faqriya war maalkaad qarisay eed mulfadal ku tiri haday tayda noqoto ubadka eed halka ku qarisay rasuul Allah wallahi ma antu baan ogaaday cid kale oo ogeyd ma jirin aniga islaanteedaan ahayn nabi ilaahi baat marka aayad buu akhriyay qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lam Allahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum Abbas ku soo degtay haday idin ka dhab tahay wixii la idin ka qaaday wax ka badan baa la idin siin doonaa waa la idin dib dhaafi doonaa fursad buu arkay soo lama oran wax ka fiican baa lagu siin doonaa rasuul Allah maanta oo ka daabkiimay hal isiyo nabigu wuxuu qaado gooyisi buu la baxayo uu buuxiyay sisriqaad uu qaadi kari waay ya rasuul Allah qof ii amar ila qaada may hadaba adigu ila qaad ila darbuuye maya porbiska riday wuxuu sisriqaad rasuul Allah qof ii amar ila qaada may hadaba adigu ila qaad may uu ka riday hadana uu qaadi kari mar saddexaadkii buu xoogay ka daadiyay uu dhuftay halkaas soo saartay nabigu wuxuu siiyay ilaa uu ka libdhayay maal jacaylka iyo awoodda bini'aadanka da'da uu joogo sidoo xamaalanayo arimahaas marka dabeecadda nabigu waxay ahayd inuu hore isu dhaafiyo inaga sadaqada sunnaha in la degdegaa waajib inuguma muddo iska oli kartaa laakiin dadkeenu aanay aqoon waxa weeye sakada waajibka ah maalinta la xisaabiyo waa in gaar loo saaraa waa in degdegna loo bixiyo waayo xaq bini'aadan qasnada kuma jiri karto xoolaha kuma sii dhex jiri karto haday ku sii jirto sii shaqeyso xoolaha aan lahayn bad ku shaqeysanaysaa xaraam bay kugu noqonaysaa intaad qofkii raadinayso inaga lama raadiyo way tubayinbe horaal sakadii wax ka sii hayaa
ومحاد وحينا سمادان له هوري سي كو الله قيبيه وحود ودا غارسي حديثك waxa kale loo daliishadaa salaada dhexdeeda in lagu fikiro nabigu ku fikiray wuxuu xasuustay alaabta guriga taala waxay culimadu leeyihiin hadaan qalbigaaga wada qabsanin dambi ma waayo Umar ibn Khattab wuxuu oran jiray ciidan baan diyaariyaa anoo salaada ku jira mar wuxuu yiri waxaan xisaabiyaa jisiyatul bahrayn wa ana fi salah qalbigaaga hadaan wada qabsanin dambi ma waliba hadii khayr laga hadlayana iyaduna dambi noqon mayso oo waxay dambi noqonaysaa markay qalbigaba qabsatee salaada meel aad maraysaba aad garan weydii waxaad akhriyayso taas la diiday waxa kale oo iyada salaada waxba u dhimayn go'aanka salaada gudaheeda lagu gaaro nabigu go'aan buu gudaha ku gaaray inuu kaco oo hore u soo qaybiyo go'aankaasina salaadii waxba uma dhimaayo فعن كريب رحمة الله تعالى عليه كريب مولى ابن عباس قال وحول سألته حويدي سلمة عن الركعتين اللي بركعتين بعد العصر وعصر كذب لتكدوه فقالت سلمة واحد رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال مغلي وينهى عنها ديديا لبركعتين وصلاة عصر كذب لتكدوه النبي قال ديديا ثم رأيته وحنا يصلي سقط كان يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي ويصقل والحال عندي نسوة من بني حرام فأرسلت إليه الجارية حديثك وحكوت له تقديم يا تأخير يصليهما حين صلى العصر وهذا قاعد كرتا إنه مساجك كنت كناي سدامه قرقو صقلي مركو قرقو صقلنا وحلت شوقي دمر ري بني حرام ومن الأنصار guriga markuu soo galay tukaday nabiga kaleey salaatu wasalaam faarsaltu ilayhi waxaan u diray al jaariyata khadimadii baan u diray faqultu waxaan ku uri qumi istaag bi jambihi dhinaciisa quli lahu waxad ku tiraa taqulu laka salama ya rasuul allah sami'tuka waxaan ku maqlay tanha adoo diidaya an haatayn rag'atayn wa araka waxaan ku arkaa tusallihima adoo tukanaya inta ku dheh nabiga tukanaya dhinac istaago inta ku dheh فإن أشار بيده هذوك عنده كوي إشاره فاستأخري عنه تبغى صباح ففعلت الجارية سلمة هند بنت أبي أمية كمان عقل بدن بهايد نبي ورك سي هذوك عنده كوي إشارة تبغى صباح هذوك جوابنا أرك ففعلت الجارية إن أنت رواسية شيء فأشار بيده قعنت بوي إشارة فاستأخرت عنه تبغى وقبح ذي فلما انصرف مركو صلاة لما يستي قال وحوري يا ابنة أبي أمية سهيل بالورنجري سهيل زاد الراكب وهند بنت أبي أمية يا ابنة أبي أمية سألتني وحدي ويديسي عن الركعتين اللي بركعتين اللتين اللي وضع صوب بعد العصر عصر كدم بيا وإنه أرنك وحيي أتاني وحييمي ناس ضد من عبد القيس أناس نوذرك دونتان أناس من عبد القيس فشغلوني وحي مشغولين عن الركعتين اللي بدي ركعتين اللتين اللي بدي بعد الظهر كان تكلا فهما لبدي هاتان ولبدن لبدن دور كتكلا أيان حلي كان تكنيا بعد العصر مركز صلاة اللي قبحه وحا ممنوعة صلاة بلا سبب عن لهين وسكع المتاع وممنوع وي جنازة ولا تكون كرا تحية المسجد ولا تكون كرا استخارة سمرين ولا تكون كرا صلاة الطوبة ولا تكون كرا صلاة الحاجة ولا تكون كرا صلاةها صوابتها له ولا تكون كريا لكن صلاة بلا صواب لما تكون يوم أما قالوه ولا مد نقول محوق لي لبدي رجع دودي كدم بيجي ظهرك وحلمي بعد الصبح نبى نبي وحو أركي سقوا لبا ركعدود تكنيا وحول ورياه واسدي لبا ركعدود يا رسول الله والله ودي ركعدود ee ka horeyn laha salaada subax waan ilaabay teetana waan iga tukanaya nabigu uu qiray marka haday ku dhaafto salaadii laba ragcadood ka horeeyay oo ajmacuuna ku soo beeganto marka laga baxaad iska tukanaysa laba ragcadood qaaliga ilaa adduunka oo dhan ka fadli badan lama dayaco way dhaaftay laguma daaye waa la tukadaa laakiin qodob muhiim ah jira ah nabigu kaleey salaatu wasalaam haduu xilli tukado uu joogteen jiray qallu ku bilaabay laakiin uu joogtay oo wax nabiga khaas u ah shay uu martaba sameeyay mudayn jiray
fadliga ilaahay siiyaa ogeed marka sababtu waxay ahayd laba ragcadood oo duhurka ah oo ilaabay laakiin intii ka dambeysay noloshiisa uu joogteeyay albaanina wuxuu qaatay laba ragcadood oo sunna ah oo gaar oo casarku leeyay laakiin waa khata culimada xadiisku waxay cadeeyeen waa labadii ragcadood oo nabiga caadadiisii uu ku joogteynayo hadduu shay qabtana uu joogteyn jiray ilaa ilaahay ka oobsaday ilaahay waxaan weydiisanaa cilmi naafic amal saalixa اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك